soo dhawaada saaxiibayaal marmarka qaar waxaa dhici karta youtube-ka adigoo markaa computer-ka ka adeegsanayo haddii aad muuqaalka heshid inaad la soo degi weyso ama aad aadid website kale oo markaas lagula soo dego. Maanta waxaan ku tusi doonaa markaa qaab fudud oo aad kula soo degi kartid adigoo muuqaalka daawanaya oo aanan ka bixin. Marka youtube-ka si fudud aad markaa windows kale adigoona furin aad kula soo degi kartid. Tusaale hadda muuqaalkan oo kale haddii aan shido oo markaa muuqaalka markaas si aad daawanaysid haddii aad ka heshid waxaad taabanaysaa oo keliya qaybtaas muuqaalka URL-kiisa ayaad wax yar ka bedelaysaa. Tusaale hadda muuqaalkan oo kale ayaan ka helay haddii aan rabo inaan la soo degsado oo computer-kii aan ku shubto waxaan taabanaya oo keliya calaamadda URL-ka oo kale la siinayaa kadibna meesha ay ku qoran tahay youtube udas meesha youtube bedelkeedii meesha aan xariiqay uda meeshaas ayaa waxaad gelinaysaa 3 ibraad kadibna enter ayaa leedahay. Marka enter leedid wuxuu ku keeni doonaa qayb kale oo markaa aad kala soo degi kartid muuqaalada aad u baahantahay markaas. Hadda muuqaalkan meeshii aan kala soo degi lahaa isaga ayay geynaa wax yar ayaan sugaynaa. Kadibna waxaa ii keenay meeshan waad ujeedaa muuqaalkii waa kan hadda aan kusoo tusaayay. Sidoo kale laba nooc ayaa kula soo degi kartaa oo waa kan video with sound midka kalena waa video without sound isagoo aan cod lahayn iyo isagoo cod leh. Marka midkan codka leh waxaa waa 720 pixel kanna midka codka leh aan lahaynna waxaa waaye 144 pixel. Marka midkan hadda tusaale kan ayaan kusoo degsanaya. Waad ujeedaan halkan waa uu soo saaray Adobe News sidoo kale meeshan waxaa magaciisa Adobe News waa isla yihiin. Haddii aan wax yar sugno muuqaalkii ayuu soo deji doonaa. Haddii aad muuqaalkan ka heshay saaxiib nagu soo biir halkan waxaan leenahay YouTube channel waan kusoo gudbinaa cashiro badan. Marka haddii aad ka heshay muuqaalkeena haddii aad muuqaalka heshayna like ha ilaawin inaad markaa xaqeena siisid.